xisbiyada waddanka hogaaminaya inuu ka mid noqdo insha Allah waxaan ku rajo weynahay ururka rajo inaan soo saarno aan diyaarna u nahay soo baxaya sidaa awgeed waan ku taageersanahay baadiye iyo magaalaba waxaan diyaar u nahay sidii aan u soo saari lahayn madaxweynaha ka doonaysaan iniga ayaa xor ah ka doonay taas taageera ka doonaysaan codeeya salaadiintii waxgaradka bulshada degtay deegaanada gobolada galbeedka Soomaaliland oo maanta shir jiraayad ku qabtay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay sheegeen inay si buuxda u taageersan yihiin doorashada soo socota urur siyaasadeedka rajo isla markaana codkooda ay siin doonaan salaadiintani waxgaradkani bulshada deegaanada gobolada galbeedka oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxay tilmaameen halkan waxaan ka taageersanahay ururka la yiraahdo rajo oo ku taageersanahay inuu ku soo baxo xusbiyada mustaqbalka kana hogaamiye dalka hadii eebaha awood la yiraahdo oo halka ka taageersanaano uguna codayna inuu soo gaaro xusbiyada wadanka wax ka bedelo ayaan ugu codaynayna haddaan nahay beesha Jibriilis sidaas aan ku taageersanahay urur siyaasadeedka rajo waanu soo dhaweynaynaa waanu taageeraynaa waanu u codaynaynaa waanu soo saaraynaa haddaanu nahay beesha Jibriilis annagoo naanu kala harin rajada halkanna waa u taalaa dadkiisa nahay dadka lagu xisaabtamaya nahay waanu sugaynay waxa weey waan soo dhaweynaynaa waxa aan taageersanahay ururka rajo oo galin baan sugaynay ururkaas oo aan taabacsanahay inuu mustaqbalka dambe uu ku soo baxo xisbiyada dhamaantaya waxaan diyaar u nahay sidii aan u soo saari lahayn haddii aan nahay beesha Jibriilis assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan isugu nimiday inaan muujino taageerada aanu qabno ururka rajo haddii aanu nahay beesha Jibriilis ururkaasoo inaan doonno ka mid noqdo xisbiyada haddii la yiraahdo u soo tartamaya wadanka soo baxaya haddaan beesha Jibriilis nahay taageeradiisa waan isku raacsanahay haddaan uqaashi beesha Jibriilis nahay haddaan beesha Jibriilis nahay waxaan u midaysanahay miyi iyo magaalaba xusbiga inaan soo saarno rajo mustaqbalka haddii eeba yiraahdo waan rajaynaynaa inuu ka qayb noqdo xusbiyada soo baxaya sidaa awgeed waan ku taageersanahay baadiye iyo magaalaba assalaamu calaykum daynaya oon ku taageersanahay xusbiga rajo oo inaan soo saaro aan ku rajo weynahay haddaan qolada waa la soo magac dhabay ururka siyaasiga ah ayaan soo saaraynaa insha Allah rajo halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa urur siyaasadeedka waxa weeyaan rajo waxa weeye in badan baan rajaynaynay in urur siyaasadkan kulay soo baxo waanu soo bixi doonaa waanan taageersanahay urur siyaasadeedka rajo markaan anagu beesha Jibriilis waanu taageersanahay waanu soo baxaya waana rajaynaynaa mustaqbalkana wuxuu noqon doonaa ka hogaamiya wadanka Soomaaliland waxaan halkan isugu imanay inaan soo saarno ururka rajo oon u soo saarno inuu ka mid noqdo ururada wadanka hogaaminaya xisbiyada wadanka hogaaminaya inuu ka mid noqdo insha Allah waxaan ku rajo weynahay ururka rajo inaan soo saarno aan diyaarna u nahay anan ma garanaysaa u midaysanahay inta iyada halka joogtiye inkasta iyo dadka aan xukunno haddaan uqaasheenahay Jibriilis aad iyo aad baan ugu rajo weynahay inaan soo saarno insha Allah wuuna soo bixi wasalaam waxaan maaragtay taageeraynaa ururka rajo gelina waa sugaynay ku yariyo ku weynna waan u dhannahay haddii aan nahay beesha Jibriilis taageero weyn ayaan siinaynaa sida iyaan gebigeegaba taageero ku siinaynaa waxaan sugaynayna way ahayd wax loo kala hadhayana maaha saawiyaan sidaas islaamada waxa odayaasha dhaqanka deegaanada gobolada galbeedka Soomaaliland uga mahadnaqay taageeradan ay u muujiyeen urur siyaasadeedka rajo gudoomiyaha urur siyaasadeedka rajo ee gobolka Awdal Yaasiin Cumar Sheekh Faarax waxaana uu tilmaamay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinaynaa cuqaasha waxgaradka qiimaha leh iyo sharafta iyo milgaha leh ee taageeraha mugga iyo miisaanka leh u muujiyay urur siyaasadeedka rajo inay u codayn doonaan codkoodana ay ku taageeri doonaan dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waa dhammaan urur siyaasadeedka rajo
urur kastaay waxa uu doonayaa inuu kasbado ama uu helo codka muwaadiniinta. urur siyaasadeedka rajo waxa uu la tartamayaa 6 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi qaran oo doonaya 3 ay doonayaan madaxweynaha ka doonaysaan iniga ayaa xor ah ka doonay taas taageera ka doonaysaan oo codeeya laakiin waxaan idinka codsanaynaa inaad noogu hiilisaan codkiina oo siisaan urur siyaasadeedka rajo kaasi oo u taagan midnimada iyo wadajirka iyo wax wada lahaanshaha ummadda reer Somaliland. وعمران حسين آدن ورقة تلفزيون كMM TV بورما.